kulan wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada Qool Media Tv. Qodobada aad warka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Somaliland oo ku dhawaaqday joojinta in salaadaha lagu tukado masaajida. Mid ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka oo iskarantiilay. Dowladda Federaalka Soomaaliya oo bandow habeenkii ku soo rogtay magaalada Muqdisho iyo madaxweyne Erdogan oo diiday iscasilaadda wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi. Haatan ku soo dhawaada qodobada aad maqasheen oo faahfaahsan. Taliyaha booliska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xajaar ayaa xalay sheegay in sida dadka looga badbaadin karo khatarta COVID-19 dowladda federaalka Soomaaliya ay go'aamisay laga bilaabo fiidnimada Arbacada oo bishu ay tahay 15 Abriil 2020 in magaalada Muqdisho lagu soo rogo bandow ka bilaabanaya 8 fiidnimo kuna eg 5 subaxnimo. General Cabdi Xasan Maxamed Xajaar waxa uu sidoo kale sheegay in bandowga uu saameynayo isu socodka dadka iyo gaadiidka ganacsiga marka laga reebo dukaamada cunnada qalalan laga iibsado iyo xarumaha caafimaadka sida farmashiyaasha iyo isbitaalada. Taliyaha booliska waxa uu kaloo sheegay in qiimeynta joogtada ah ee lagu sameynayo xaaladda faafitaanka COVID-19 lagu go'aamin doono wax ka beddelka bandowga. General Cabdi Xasan Maxamed Xajaar ayaa sidoo kale dadka ka codsaday in bandowga ay u hoggaansamaan si dadka looga badbaadiyo cudurka khatarta badan. Ugu dambeyn, taliyaha ayaa hoosta ka xariiqay in ciidamada amniga la faray inay dadka xanuunsanaya ee xaaladda degdega ah la soo gudboonaato ay u fududeeyaan gaaritaanka goobaha caafimaadka si ay u helaan daryeelka ay u baahan yihiin. Hoggaanka dowladda Soomaaliya ayaa dadaalkooda isugu geynaya sidii hanaanka ugu habboon ee ugu saameynta yar ay ugu xakameyn lahaayeen faafitaanka cudurka COVID-19 ee ka dhasha fayraska corona. Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle ayaa sheegaya in madaxweynaha maamulkaasi Maxamed Cabdi Waare uu iskarantiilay kadib markii uu isaga shakiyay caabuqa coronavirus-ka. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle ayaa horey u sheegay in madaxweyne Waare iyo xubno kale ay ku jiraan xaalad karantiil ah, waxa ayna xubnaha si iskooda u go'aansadeen inay iskarantiilaan. Madaxweyne Waare iyo xubno kale oo iskarantiilay ayaa la sheegay in ay la kulmeen wasiiru dowlihii maamulka Hirshabelle Xildhibaan Khaliif Muumin Allah u naxariistay oo shalay magaalada Muqdisho ugu geeriyooday cudurka coronavirus. Qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay madaxweyne Waare ayuu ku sheegay in uu karantiil ku jiro, waxa uuna tilmaamay madaxweynaha in hadda xaaladiisa ay tahay mid wanaagsan balse uu ku jiro taxadar. Waxa uu qoraalkiisa ku yiri madaxweynaha sida tan: Ilaahay baan xanuunsan balse okay ayaan ahay. Toddobaadkii tagay ayaan doortay in aan iskarantiilo iyada oo iga tahay taxadar iyo in aan tusaale u noqdo dadkayga. Waan sii wadi doonaa in aan sidaas sameeyo si la mid ah dadka, ayuu yiri Waare. Caabuqa coronavirus-ka ayaa ku sii badanaya gudaha Soomaaliya, waxaana wasaaradda caafimaadka xaqiijisay kiisas hor leh oo cudurkan ah, waxaana ilaa iyo hadda magaalada Muqdisho ugu geeriyooday 2 qof halka kuwa kalena ay la jiifaan. Xukuumadda Somaliland ayaa ku dhawaaqday in muddo 4 toddobaad la joojin doono in salaadaha lagu tukado masaajida, iyada oo dadweynaha la faray inay guryahooda ku tukadaan. Sidoo kale goobaha waxbarashada ayaa xirnaan doona 4 toddobaad oo kale. Xanuunka coronavirus-ka awgii, dadka ajaanibta ah ee bilaha sharciga ku jooga dalka ayaa loo qabtay inay dalka kaga baxaan 5 maalmood. Somaliland ayaa xaqiijisay kiisas cusub oo ku saabsan coronavirus-ka. Wasiirka caafimaadka Somaliland ayaa sheegay in kadib markii baaritaano lagu sameeyay dad horey looga shakiyay 3 ruux oo ka mid ah laga helay cudurka coronavirus-ka. Kiisaska guud ee laga helay Somaliland ayaa noqonaya 5 ruux, waxaana horey Somaliland ay u sheegtay in 2 kiis oo cusub oo lala xiriirinayo cudurka coronavirus-ka laga helay. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa diiday inuu aqbalo iscasilaadda wasiirkiisa arrimaha gudaha oo ka dhalatay xanibaad degdeg ah
oo dalka lagu soo rogay, taasi oo hogaamisay in dadku ku cararaan dukaamada iyagoo argagaxsan. Wasiir Suleymaan Saylu ayaa la kulmay cambaarin xoogan kadib markii bandow 48 saac ah oo looga hortagayo faafitaanka cudurka coronavirus-ka lagu dhawaaqay Jimcihii, iyadoo shacabka la siiyay kaliya ogeysiis 2 saac ah. Go'aankaas ayaa kumanaan qof ku qasbay inay ku cararaan suuqyada, taas oo jebisay xeerkii kala fogaanshaha bulshada. Wadooyinka magaalooyinka Istanbul iyo Ankara ayaa sidoo kale buuxsamay, iyadoo la arkayay safaf dhaadheer oo loo galaya dukaamada cuntada, bangiyada iyo goobo kale. Isaga oo ka jawaabaya jahwareerka arrintaas ka dhashay ayaa Saylu waxa uu sheegay in go'aanka lagu joojinayo dhaqdhaqaaqa dadka uu amray madaxweynaha. Hase yeeshee, wasiirkan arrimaha gudaha ee awoodda badan isla markaana 50 jirka ah ayaa Axaddii aqbalay mas'uuliyadda buuxda ee fulinta amarkan, taasi oo uu sheegay in si daacada loo fuliyay. Si kastaba, Erdogan ayaa diiday in uu aqbalo iscasilaadda Saylu. Wuxuu sii wadi doonaa howlihiisa, ayuu yiri. Dalka Turkiga ayaa waxaa laga xaqiijiyay 57,000 oo kiis oo COVID-19 ah, iyadoo ay u dhinteen 1,200 oo qof, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Turkiga.